Hore ma u maqli jirtay sir dumar lagama salgaadho haddii aad yaabi jirtay marka laga sheekeeyo xeelad badnaanta dhagarta iyo khidad wanaagga haweenka bal imika yaabkaagii hore mid hor leh ku darso oo si xiiso badan barnaamijkan u dhugo kusoo dhawow kanaalka dhacdaside haddii aad nagu cusub tahayna rukumo si xogaha muhiimka ahi durtaba ay kusoo gaadhaan waxaaynu ka warramaynaa qarnigii tobnaad ee miilaadiga goobta aynu dhacdadan ka warinaynaana waa boqortooyo wakhtigaa ka talinaysay dhulkan maanta wadamada ruushka Ukraine iyo Belarusia ay ku yaalaan boqorkii dowladdaas ka talinayay oo lagu magacaabi jiray Igor waxa uu qabay gabadh iyadana lagu magacaabo Olga labadoodana waxa ka dhaxeeyay kalgacal iyo maxabba aad iyo aad u weyn maadaama oo uu ninkani dhul ballaaran ka talinayay waxa joogto ahayd in qabiilada qaar ay dowladdiisa mucaaradaan amaba ay diidaan cashuurta iyo gibirka sanadkiiba mar laga qaado kaas oo caddayn u ah in ay maamulkiisa hoos yimaadaan qabiil Dirifilianis la odhan jiray ayaa iyaguna diiday gibirka in ay bixiyaan waxaana uu boqorkii ciidan hor la u kaxaysay caasimadii ay qabiilkaas yaaleen nasiib darrose qabiilkii nolol ayay boqorkii ku qabteen oo geedadkan hortiina idinka muuqda ayay laba ka mid ah mid ahaan soo qulluuciyeen kadibna lug iyo gacanba geed bay ku xidheen markaas ayay sii daayeen kadibna labadii geed ayaa si xawli leh u kala durkay ama u kala dhaqaaqay halkaas ayuu boqorkii ku kala jeexmay oo qaarba uu dheeg raacay sidaa foosha xullena uu u geeriyooday geeridiisa kadib waxaa xilka xaq u lahaa cunugiisa balse isaga oo 3 jir ahaa darteed waxa kursigii kusima ahaan u sii fuushay xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray Olga warla'aan baa wadaado hodee qabiilkii Dirifilianisku ee boqorka sida xun u dilay markii ay maqleen gabadhani in ay kursigii fuushay aad ayay u farxeen damaxumadoodana waxa ay isku dayeen in ay dowladda maamulkeeda kala wareegaan oo iyaga oo dhadignimo jileec iyo dumarnimo kaga tashanaya ayay go'aansadeen in ay khidad caato ah u dhigaan 20 nin oo ka mid ahaa odayaashii iyo dadkii ugu magaca dheeraa qabiilkan ayaa loo diray amiiradii oo iyadu caasimadeedii ka talinaysa maxay kula tahay in ay raggani amiiradda ula socdeen dabcan waxaad filaysaa in ay raaligelin ay u wadeen haddaba arrintu sidaas ma aha raggani waxa ay amiiradii ku yidhaahdeen waxaanu rabnaa in aad guursatid boqorka reerkayaga oo la yidhaahdo maal dabcan qabiilkan waxa ay lahaayeen boqor hoosaad iyaga oo maagan in uu halkaas u soo maro talada boqortooyada gabadhani dhulka ayay isku gogoshay waxaana ay u muujisay jileecii iyo dumarnimadii ay awalba kaga soo talagaleen oo inta ay isu bihinbihisay ayay u sheegtay in aanay dalabkoodaas waxba ka qabin guurkana ay diyaar u tahay balse waxa ay ka codsatay in ay doonyahoodii ku noqdaan oo dib magaalada uga baxaan kadibna berri ay ku soo noqdaan si hab maamuus leh oo u qalanta loogu soo dhaweeyo nimankii sidii ayay yeeleen magaaladiina way ka baxeen balse habeenkii oo dhan waxa ay ciidankii amiiradani qodayeen hog aad u dheer oo ay ku shirqoolayaan subaxii ayay raggii soo galeen magaalada waxaana si kadis ah ay ugu dhaceen dabinkii loo dhigay kadibna iyaga oo nool ayaa halka lagu aasay amiiradii isla markiiba dhambaal ayay u dirtay qabiiladii ninkeeda dishay waxa ay u sheegtay in ay ogoshahay ayna soo dhaweynayso dalabka guurka balse ay dadkeedu yara kacsan yihiin haddaba si ay shacabkeeda u dejiso waxa ay ka codsatay in ay u soo diraan xulka ragga qabiilkaas ugu haldoorsan yacni taliyayaashooda ganacsatadooda aqoon-yahankooda iyo in dheergarodkooda inta ugu mudan si ay waftigii hore ay u xoojiyaan waxaana ay u sheegtay in waftigii hore ee ugu yimi ay si heer sare leh u soo dhaweysay una martigelisay qabiilkii iyagu aad ayay u farxeen waxaana ay u fahmeen inay khidadoodii si wanaagsan u socoto si dhaqso ah ayay haldoorkoodii ugu soo direen iyagiina degdeg ayay amiiradii ugu yimaadeen balse intaanay la kulmin ka hor waxaa loo tilmaamay maadaama oo ay safar ka soo galeen in ay ku soo maydhaan xamaam weyn oo loo diyaariyey kuna soo nafisaan balse markii ay sidaa u galeenba degdeg ayaa albaabadii loo xidhay markaas ayaa dab lagu shiday iyagiina halkaas ayay nolol ku gubteen weli sifaan oo la fari kama qodna ee gabadhii waxay isku aragtaa in aanay weli odaygeedii u aarin isla xilliyadiiba waxaa qabiilkii soo gaadhay dhambaal amiiradii ka yimi waxa ay u sheegtay in ay arrintii meel fiican u marayso ayna waftigii wax badan isla meel dhigeen oo isku afkarteen waxay ugu calaacashay weli shacabkii in ay kacsan yihiin balse waxay u sheegtay xalka arrintaas dejinaya oo waxay ku tidhi waxa la qabanayaa munaasabad janaasadii odaygayga oo ahaa boqorkii aad disheen lagu weynaynayo waxaan u baahanahay in aad 5,000 oo ciidankiina
kuwa ugu xooga waaweyn leh uguna tababarka sarreeya leh ii soo dirtaan, kuwaas oo boqorka maamuusa si ay dadkayguna u arkaan arrinta in aad idinkuna ka xun tihiin. Intaas kadibna askarta hortooda iyo weliba wafdigiinna hortooda ayaan kaga dhawaaqayaa in aan diyaar guurka u ahay. Farxad ayay kala bateen qabiilkii, waxaana u muuqatay in ay soo dhowaatay xilligii ay boqortooyadan ballaaran ka talin lahaayeen. Waqti badinaba kamuu soo wareegin markii ay 5,000 oo ciidan ahi soo gaadheen caasimadii amiiradda, iyadiina wax kasta oo ay samaynaysaa waxa uu ahaa mid khidad cajiib ah ku fadhiya. Habeennimadii waxa ay 5,000 ee ciidanka ahaa la siiyey cunto aad u macaan iyo khamri aad u fara badan. Kolkii ay 5,000 sakhraameen, dhammaantoodba kurka ayaa laga jaray oo kolkiiba waxa birta ka aslay ciidan fara badan oo amiiradda hoos taga. 5,000 waxa laga takhalusay iyada oon ciidankii amiiradda wax dhibaato ah soo gaadhin. Markii ay amiiraddu ogaatay in ay haldoorkii iyo ciidankii qabiilkaba dishay, ayay geesh fara badan u kaxaysatay oo caasimadoodii ku duushay, balse qabiilkii oo aad u dulaysan ayaa cabaad iyo baryo kala horyimi. Waxay ugu baroorteen in ay dhowrlaab cashuurtii hore ee ay bixin jireen imika iyo wixii ka dambeeyaba ay dhiibayaan. Balse boqoradii Jiljilac ayay markana u muujisay oo waxa ay ku tidhi, dib dambe cashuur laydinka qaadi maayo oo culays dambe la idin saari maayo. Imikana ganaaxiinu waxa uu yahay qof kasta in uu 3 xamaam ah gurigiisa ka soo qaado oo uu keeno, sababtoo ah qabiilkani aad ayay shimbiraha u dhaqan jireen, malabkana aad bay u soo saari jireen. Qabiilkii 2 jeerba way farxeen. Waa mar ay cashuurtii waa laga joojiyey, mar kalena waxa ay ku farxeen in waxa lagu ganaaxay uu aad u fudud yahay. Maalintii oo dhan ayay shimbirihii dadkii magaalada u keenayeen. Galabnimadiina amiiradii ayaa magaalada ka baxday, balse duleedkeeda kolkii ay gaadhay ayay joogsatay oo shimbir walba ku xidhay walax ololaysa, taas oo ay xarig dheer lugta ugaga laalaadisay. Kadibna xamaam waliba iyada oo wax ololaya sidata ayay dib gurigeedii ugu soo noqotay. Saacado yar kadibna magaaladii way isla oloshay, dad badanina way ku leedeen. Intii ka soo badbaaday ee magaalada ka soo carartayna waxa ay la kulmeen ciidankii amiiradda oo magaalada isku weer ka haya, oo seeftii ayay unuunka kaga gureen. Haddana waxoogaagii badbaaday iyagana way kaxaysteen oo addoomo ayay ka dhigteen. Sidaas ayay boqoradii ku aargudatay. Iminkana waxa ay boqoradani ka mid tahay dumarka ugu mudan ee kiristaanku ay weyneeyaan, taariikhdoodana milgaha ku leh.